xaaladii Ethiopia ugu dambeysay dagaalkii wuu socdaa si fiican baa la isu gacan saaray TPLF iyo EPP runtii ilaa hadda dowladda federaalka Ethiopia guulaha la taaban karo ee gaadhay ilaa hadda ay ku yara faani karto waxaa ka mid ah inay xuduudii ka soo xirtay nimankii Tigreega ahaa waxaa la geliyay oo baa la geliyay albaabkiina waa laga taagan yahay daaqadiina waa laga taagan yahay marka qol bay Tigreega oo dhan iyo TPLF iyo haweenkii oo dhan taas waxaa weeye waata ay guushu la taaban karo ee dowladda federaalka gaadhay waa taas canfarta dhinaceeda waa laga xiray dhinacii Amxaara waa laga xiray dhinacii Eritrea waa laga xiray waxaa kaloo laga xiray dhinacan kaleete ee Suudaan marka inta ayadaa way ku guuleysatay waa guusha la taaban karo ee federaalku sameeyeen waxaa kaleeto oo dhacday shalay ilaa shalay fiidadkii waxay Tigreegu ka baxeen dhul badan bay u baneeyeen deegaano badan bay u baneeyeen iyagoo ciidamo sida inay jabeen camal ah ciidamadii Amxaaradii jabhadoodii oo dhan iyagoo ordayay galeen furintii waxay u haysteen inay Tigreegu jabeen runtiina dhabar jabin loogu talagalay bay ahayd ciidankii federaalka iyo qowmiyaddii Amxaaradu waxba kama harin baa yiri ciidankii meeshaas galay cagta la mariyay يعني si fiican bay TPLF u sameysay waana khiyaamo ay u dhigtay baa yiri runtii ugu yaraan mas'uulkan iyo warramay wuxuu sheegay saraakiishii dowladda federaalka afkooda ka sheegay yani markay dhulkii Tigreega soo galeen waxa lagu sameeyay buundooyinkiina waa laga jaray si ay isugu gurmadaan waa waayeen marka taangiyadii waa laga qabsaday ciidankii waa la hareereeyay waxa weeye ciidan aad u badan oo dowladda federaalka halka ku dhintay oo maaragtay gacanta TPLF ku baxay waana khiyaano ay TPLF ugu tala gashay iyagoo iska dhigay inay jabeen camal si xuduudan ciidanka ay isku duuban ay u qabjabiso runtii ciidan aad darbaxa aad u xoog badan baa dowladda federaalka soo garaa la yiri darbaxada shalay ku dhacay dowladda federaalka ilaa hadda meel ay ka hadasho weylaadaha la yiri activistiyaashii federaalka oo dhan wax social media iyo Twitterkii u dhawaada waa leeyahay macal Abiy Ahmed yani jugtii shalay soo gaadhay ilaa maanta miskii hore oo ah in maaragtay buundooyinkii intii laga jaray dhul loo baneeyo oo Tigreega dhulkoodii ay soo galeen ciidankii albaabadana lagu xirtay si fiican maaragtay halka loogu jabiyay waa ciidamada maaragtay jugta gaadhay nin sargaal oo dowladda federaalka wuxuu sheegtay 7 taangi in laga qabsaday ciidan badan la xasuuqay runtii waxa la isku raacay Amxaarada xuduudka la leh Tigreega jug aan la qiyaasi karin ayaa soo gaadhay dad badan iyo ciidan aad u badan oo meesha gurmud u tagay ayaa laga laayay markaad eegtana dowladda federaalka aad uma hubaysna cududoodu aad bay u hooseysaa runtii sidii la filayay ciidanka Ethiopia waxa loo haystay ciidan tough ah oo TPLF hore ka guuleysanaya ama kaarta sare ku socda ayaa loo haystay laakiin arrinta ayada been maleeshiyaadka habqana oo Amxaara u badan ayaa meesha galay si fiican baana dhigaa looga soo jabfay runtii hub badanna waa laga qabsaday laakiin dowladda federaalku waxay ku guuleystay in xuduudada ka xidho oo Suudaan dhinaceedina waa ka xiran tahay Eritrea iyo Canfartii dhulkan waa ka xiran yahay taas iyada marka waxa weeye waa xaalka maaragtay dagaalkiina federaalku waa lagu jabay ilaa hadda mas'uulkan iyo warramay wuxuu sheegay oo yiri yani waan la soconaa buu yiri meediyaha Abiy Ahmed iyo tiimkiisii weerarka qaaday hal qof oo hadlaya kuma jiro yiri hal qof oo hadlaya oo media u soo dhawaanay malowday awal marka in yaroo libina helaan ama tuulo yar qabsadaan waxbaan qabsanay iyo way boodboodi jireen laakiin ilaa maanta waxa soo bariyay social media way ka caageen way ka carreen sababta jugta gaadhay ciidankii ugu badnaa loogu talagalay Tigreega inuu qabto ugu yaraan kala bar gacanta Tigreega u galay isagii iyo hubkiisii buundooyinku waa lagu jaray degmooyin iyo tuulooyin baa halka lagu xirtay marka waxaad moodaa colaadu inay aad iyo aad u sii badanayso mas'uulkan waxa kale oo ii sheegay in maaragtay magaalooyinkii iyo wuxuu ka cudur daartay runtii isagoo highway saaran baan la hadlay wuxuu yiri waxay ahayd inaad soo wacdo anoo guriga jooga sababta tuulooyinka iyo waxa la qabsaday iyo detailka oo dhan waan hayaa buu yiri laakiin ma awoodo baan ku yiri live baan gelayaa macluumaadka ugu dambeeya update-kiisii arrinta kaleete ee meesha jaaga waxay tahay dowladda Masar ayaa waxay ku antacootay in laga gubay warshad ay ku lahayd dhulka Tigreega oo maalgeliyeen oo ganacsatada iyo dowladda Masar ay lahayd hanti ay maalgelisay oo state-ka Tigreega ku taalay in la gubay marka arrinta ayadaana waxa loo arkaa inay masaaridu marmarsiyo ka dhiganayso oo ay rabto in dagaalka si dadban oo dhaqso u gasho oo ay gacan u siiso TPLF sababtoo Masar meesha waxay u timid
ma dhihi karto webigii baan u socdaa iyo si kale dagaal iskama geli karto marka hantidaydii iyo ganacsigaygii aan Tigray ku lahaa baa la burburiyey qaab noocaasa ay maaragtay ku andacoonaysaa baa layidhi nimankii masaarida ahaa iyada taasaa meesha iyada laga sheegayaa waxaa kaleetoo jirta Tigraygu ilaa hadda dhowr caqabadood baa jira xuduudada haddii laga xidho waa xaalad adag yacni wargeysyada Eritrea ka soo baxay waxay qorayaan oo adee niman Tigray ku hadla oo Tigraygana ku leh ila badan iyagu waxay sheegayaan in nimankii Tigrayga ahaa ay shidaalka iyo waxyaabo badan gabaabs ku noqonayaan iyo cuntooyinka qaarkood maadaama xuduudadii oo dhan laga xiray arrintan ayna sii wada ilaa hadda Abiy Ahmed iyo tiimkiisana istiraatiijiyadooda ugu weyn waxaa weeye long term in Tigrayga la hareereeyo laguna qasbo wada hadal waa qodob ay maaragtay targetkeedu ka mid yahay mid kale ee prime ministerku ay sameeyeen iyo amxaarada ee cajiibka ah waxay tahay runtii dad ujeedkooduna waa runtii saad ogtiin TPLF degaan Ethiopia oo dhan meel walba la falgashay waxa wax dhisayay waxa investmentiga lahaa waxa shirkadaha lahaa waxa korontada lahaa waxa ganacsiga lahaa Ethiopia oo dhan waxay ahaayeen TPLF marka waxaa lagu sameeyey qof walba oo Tigray oo hanti haystay terrorista lagu qoray marka magaalada Addis Ababa iyo Ethiopia oo dhan deegaanadan aan Tigrayga ahayn oo dhan waa laga sifeeyey guusha ugu badan ee Abiy Ahmed iyo tiimkiisa